Dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine wuxuu ka mid yahay dagaalada ugu culus ee soo maray caalamkan casrigan aynu noolnahay. Dagaalkani wuxuu bilowday sanadka 2014 kadib markii Ruushka uu weeraray gobolka Crimea, balse wuxuu si adag u bilowday sanadka 2022 markaas oo ciidankii Raashiyaanka iyo ciidankii Ukrainiyiinta ay isku hub qaateen. Dagaalkani wuxuu bedelay siyaasadda caalamka isagoo sababay dhibaatooyin bani'aadantinimo iyo burbur dhaqaale iyo xasarado siyaasadeed oo cusub. Dagaalkani wuxuu ku saleysan yahay jiritaan siyaasadeed, taariikhi ah iyo mid dhaqan oo u dhexeeya labada dal. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, asalkiisii hore, meeshii uu ka soo bilowday, iyo waxyaalaha ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin saameynta bani'aadantinimo ee uu reebay. Iyo waxyaabaha kale aynu ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah khilaaf ka socda mustaqbalka iyo rajada laga qabo dagaalkani halka uu ku dambeyn doono. Kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. inta aynaan guda gelin muuqaalkeena maanta, fadlan daawade haddaad horey noola joogtay muuqaalka like sar oo la wadaag asxaabtaada. Haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. Gunta hoose ee dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine waxaa laga soo minguurin karaa burburkii Midoogii Sofiyeed ee 1991. Ukraine ayaa horey ugu tirsanaan jirtay Midoogii Sofiyeed ayaa ku dhawaaqday madax bannaani, taas oo keentay in la dhiso dowlad madax bannaan oo Ukraine ay leedahay. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda u dhexeysa Ukraine iyo Ruushka ayaa weli taagan, gaar ahaan arrimo ay ka mid yihiin rabitaanka Ukraine ee ku biirista Midowga Yurub iyo NATO, taas oo Ruushka ay khatar ku tahay saameynta ay ku leedahay gobolka. Colaadda ayaa bilaabatay inay sii xumaato sanadka 2014 markaasoo madaxweynihii Ukraine ee taageersanaa Ruushka xilka laga tuuray, kadibna dibadbaxyo ballaaran ayaa la qabtay arrintaas darteed. Arrinta ayaa keentay in Ruushka uu la wareego gobolka Crimea, taas oo ay si weyn u cambaareeyeen beesha caalamka. Kadibna ku biiristii gooni isku taagga ee Ruushka ee bariga Ukraine waxa ay ku dhawaaqeen madax bannaani, taas oo keentay inay si buuxda u dagaalamaan ciidanka Ukraine iyo kuwii gooni isku taagga ku dhawaaqay ee la jiray Ruushka, taas oo keentay in beesha caalamku ay ka soo horjeestaan Ruushka ayna la jiraan Ukraine. Bishii Febraayo sanadka 2022, iskahorimaadku wuxuu yeeshay isbeddello weyn markii Ruushka uu bilaabay duulaan militari oo buuxa oo uu ku qaaday Ukraine. Sababaha ka dambeeya duulaankani ayaa ah kuwo adag oo dhinacyo badan leh. Ruushka waxa uu ku andacooday inuu u dhaqmayo sidii u difaaci lahaa dadka ku hadla afka Ruushka ee ku nool bariga Ukraine, iyo inuu ka hortagayo isballaarinta NATO. Sida ay qabaan falanqeeyayaasha badankoodii ayaa aaminsan in duulaankani uu sidoo kale ka dhashay rabitaanka Ruushka ee ah inuu dib u soo ceshto saameyntiisa Ukraine oo uu ka ilaaliyo inuu si dhow ula socdo reer galbeedka. Duulaankani ayaa horseeday dalka Ukraine inuu soo gaaro burbur baaxad leh oo ay ka mid yihiin magaalooyinka sida caasimadda Kiev iyo Kharkiv iyo Zaporozhye oo ay soo gaareen burbur xooggan. Beesha caalamka waxay kaga jawaabtay cunaqabateyn dhaqaale oo daran oo ka dhan ah Ruushka iyo taageerada militari ee Ukraine. Inkastoo markii hore la filayay in militariga Ruushku ay si degdeg ah uga adkaan karaan ciidamada Ukraine, colaadda ayaa isku beddeshay dagaal daba dheeraada oo dhiig badan uu ku daato, iyadoo labada dhinac aysan gaarin guulo la taaban karo. Dagaalkani ayaa saameyn xun ku yeeshay dadka rayidka ah, gaar ahaan reer Ukraine. Malaayiin qof ayaa ku barakacay iyagoo aaday dalalka deriska la ah Ukraine. Dadku maysan moodi jirin mar hore in dadku caddaanku ay barakacaan, laakiin maalinkii uu bilowday dagaalka waxaa la arkayay dad caddaan ah oo barakacayo. Afrikaanku iyagu ma aaminsana in dad caddaan ay barakici karaan. Labada dal, Ukraine iyo Ruushka, waxaa soo gaaray dhibaatooyin aad u daran, gaar ahaan dhibaatooyin bani'aadantinimo iyo tan ciidankaba. Qaramada Midoobay
iyo hay-adaha bani'aadantinimo ee kala duwan ayaa soo sheegay marar badan oo waxyeello soo gaartay dadka rayidka ah, burbur ku yimid kaabayaasha dhaqaalaha iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Colaadda ayaa sidoo kale horseeday cunto yari caalami ah, maadaama Ukraine ay ka mid tahay dalalka ugu badan ee soo saara qamadiga. Khalkhal ku yimid wax soo saarka beeraha iyo dhoofinta ayaa sababay in qiimaha cuntadu uu sare u kac ku yimaado, taas oo saameyn ku yeelatay malaayiin qof, gaar ahaan dalalka soo koraya. Beesha caalamka ayaa si weyn ugu kala qaybsamay jawaabta ay ka bixinayaan dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Wadamada reer galbeedka oo ugu horeeyo Midowga Yurub iyo xubnaha NATO waxay Ukraine siiyeen taageero ciidan iyo mid dhaqaale iyo mid bani'aadantinimo oo muhiim u ah Ukraine. Sidoo kale waxay cunaqabateyn ku soo rogeen Ruushka iyagoo bartilmaameedsaday dhaqaalihiisa, horumarinta siyaasadeed iyo warshadihiisa muhiimka ah. Dhanka kale, dalalka ay ka midka yihiin Shiinaha, Hindiya iyo dhowr kale ayaa qaatay mowqif dhexdhexaad ah, iyagoo ku baaqay in wadahadal iyo wadaxaajoodyo lagu dhammeeyo khilaafka. Dagaalkani ayaa sidoo kaleeto banaanka soo dhigay khilaafka u dhexeeya beesha caalamka, iyadoo wadamada qaar ay walaac ka muujinayaan in colaadani ay isku beddesho dagaal ballaaran oo ku lug leeyihiin dowladaha ku hubeysan hubka nukliyeerka. Ilaa hadda, dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ma muujinayo wax calaamad ah oo soo afjarayo. Wadahadallo nabadeed ayaa si aan kala joogsi lahayn loo qabtay, balse waxay ku guuldareysteen inay ka soo baxaan go'aano waara. Labada dhinac ayaa weli isku hor fadhiya dagaallo qaraar, iyadoo furimaha hore ee dagaalku ay isbedelayaan, iyadoo dhinac walba uu isku dayayo inuu ku gacan sareeyo. Mustaqbalka colaadda ayaa ah mid aan la hubin. Khubarada qaar ayaa aaminsan in dagaalka oo daba dheeraada uu keeni karo isdhaafid la'aan mustaqbalka, halka qaar kaleetana ay ka cabsi qabaan in colaadani ay sii korodho, oona laga yaabo in dalal kaleeto uu soo jiiso. Dagaalku wuxuu horay u lahaa cawaaqib xumo keliya ma ahan Ukraine iyo Ruushka, laakiin waa adduunka oo dhan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa in badan ka soo muuqday shaashadaha caalamka, iyagoo midba midka kaleeto uu u jeedinayo eedayn aad u adag, taas oo keentay in dagaalku uu mar walba sii xoogeysto. Ruushkana marnaba muusan joojinin inuu dagaalka ku sii wado dalka Ukraine, halka Ukraine iyaduna ay wado iska caabin aad u weyn. Reer galbeedkuna waxay Ukraine la daba taagan yihiin gargaar dhinaca ciidanka iyo dhinaca sirdoonka, balse Ruushku isagoo garab gelayo dhinaca Iiraan iyo dhinaca Shiinaha, isaguna wuxuu si baaxad leh u wadaa dagaalka uu kula jiro dalka Ukraine. Laakiin hadda waxaa la dhihi karaa in dagaalku ay ku gacan sareeyaan ciidanka Ruushka, iyagoo qabsaday gobollo aad u badan oona ay ku gacan sareeyaan dalka Ukraine. Ukraine iyo Ruushka waxaa ka dhexeeyo taariikh aad iyo aad u dheer, sababtoo ahi Ukraine waxay ka mid ahayd dhul ka mid ah dhulkii Midowgii Sofiyeed, taas oo keentay in Ruushka maanta uu la dagaalamo. Sababtoo ahi Ukraine waxaa kusoo gambanayo reer galbeedkii oo dhan, iyagoo raba in Vladimir Putin oo madaxweyne ka ah dalka Ruushka waxay rabaan inay dumiyaan xukunkiisa, taas oo Ruushka isagu nagu qasabtay in mar walba uu ka digtoonaado weerarka ay soo qaadi doonaan reer galbeedka, balse isagu uu kala hormaray. Hadda dalka Ukraine waxaa meesha ku baaba'ayo Ukrainiyiinta oo keliya, waxaa kaleetoo ka dagaalamaya dalka Ruushka ciidanka loo yaqaano Wagner, kuwaas oo ah ciidamo caloosho dushaqaystayaal ah oo ay hoos tagaan ciidamada Ruushka. Intaas waxaynu kusoo gabagabeyneynaa muuqaalkeena maanta. Fadlan daawade, haddaad nagu cusub tahay nagu soo bir, haddaad horey nala joogtayna muuqaalka like saar oo la wadaaga asxaabtaada. Intaynu ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalkiisa kaleeto, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.